wadahadalku waa dariiqa ay Soomaaliland ku soo caanamaashay waa muurta ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi wadahadalku waa xiriirka dad badan dhexmara waana xirfad bulsho oo ay ka qayb qaadashadiisu aanay ku adkayn dadka badankooda siyaabaha qaarkood wadahadalku waa qaabka ugu habboon ee la isku afkarto maadaama dad kale aragti duwan ay ka hadli karaan mowduucyo u gaara shalay sabtidii xukuumadda Soomaaliland waxay kaga dhawaaqday magaalada Laascaanood inay diyaar u tahay in wadahadal lagu dhameeyo tabashooyinka ka jira gobolkaasi sidoo kalena xukuumaddu waxay ku dhawaaqday ogolaanshaha shir dhaqameed ay yeeshaan dadweynaha reer Soomaaliland ee gobolkaasi iyadoo labada tallaababa ay qayb ka yihiin wadahadalkii iyo wadatashigai ay Soomaaliland ku soo caanamaashay wixii ka dambeeyay dib u soo noqoshadii madaxbannaanida Soomaaliland ee sanadkii 1991 si haddaba loo helo wadahadal guul dhinacyadu waa inay sameeyaan dheelitirnaan la taaban karo oo wax ku biirin karta mustaqbalka wadahadalka guuleystana waxa qayb ka ah in la isdhaafsado xidhiidh xiiso leh shir dhaqameedyaduna waa inay helaan mowduuc ay si miyir leh uga wada tashadaan wadahadalku waa laan ka mid ah cilmiga bulshada taasoo daraasadaysa qaab dhismeedka iyo habaynta isdhexgalka bini'aadamka waxaana laga bartaa xirfadaha loo baahan yahay si loo maareeyo isku dhacyada iyo arrimaha xiisadaha dhalin kara waana dariiq muhiim ah oo loo maro arrimaha isla xisaabtanka muwaadinka Soomaaliland waa inuu og yahay in maslaxadda guud ee dalku tahay badbaadinta dadweynaha iyo dawladnimadeena iyadoo aynu waaye arag u nahay in khilaaf kasta uu ka dambeeyo heshiis iyo isafgarad intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Xuseen Aadan Yuusuf Xuseen Kurdi waxaan idin la socodsiinayay anigoo Saaxiib Cabdi Goole